Halkan waa Eldoret News. Waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha dagaalada ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo meelaha la kala marayo. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe saaro, like inoo taabo, muuqaalada aan soo gelino, waad ku mahadsan tahay la socoshadeena. 100 askari oo kamid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan. War-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saaxiibadooda caalamiga ah iyo sidoo kale dadka deegaanka ay ku dhawaad 100 qofood oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen howlgaladii ka dhacay gobolka Galgaduud. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka ah ayaa howlgal wada jir ah oo ay ka sameeyeen deegaanka Ceel Gorof ee gobolka Galgaduud waxay ku dileen in ka badan 50 shabaab ah sida lagu sheegay warka dowladda. Howlgalka oo ahaa mid aad loo qorsheynayay ayaa lagu burburiyay saldhig ay qawaariijtu ku lahaayeen deegaanka Ceel Gorof, waxaana ciidanka qaranka iyo dadka deegaankuba ay soo ururiyeen 31 ka mid ah meedadka qawaariijta oo lagu dilay howlgalkaasi ayaa lagu yiri warkan. Dhinaca kale, howlgal qorsheysan oo ay iska kaashanayaan ciidanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah oo ka dhacay beeraha aaga gaashaan ee deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu dilay 47 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa heshay xogta qawaariijta oo isku urursaday beeraha gaashaan kuwaas oo ku howlanaa dhagarta shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Ugu dambeyntii, warka dowladda Soomaaliya waxaa lagu yiri dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa dadka deegaanka iyo waliba sidoo kale saaxiibada caalamiga ah oo gacan ka geystay howlgalkani guuleystay oo lagu ciribtirayo shabakada qawaariijta ah kuwaasi oo qorsheynayay weerar ay ku bartilmaameedsanayeen shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada qaranka, saaxiibada caalamiga ah iyo dadka deegaanka oo ku dhawaad 100 qawaariijta ah ku dilay howlgal maanta ka dhacay ayaa lagu yiri gobolkaasi. Maanta ay taariikhdu ku beegneyd 9 November 2019, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgal wada jir ah oo ay ka sameeyeen deegaanka Ceel Gorof ee gobolkaasi Galgaduud waxa ay ku dileen in ka badan 50 ka tirsan qawaariijta Al-Shabaab. Dhinaca kale, howlgalkani qorsheysan ayaa waxaa iska kaashaday ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah, waxaana halkaasi lagu weeraray beer lagu magacaabo gaashaan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Tiro dhowr ah oo ka tirsanaa ururka ayaa lagu dilay halkaasi iyadoo howlgalkaasi uu ahaa mid guuleystay oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay guula ka soo gaartay. Dagaaladan ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka soconaya gobolada qaar ee dalka ayaa wax uu ka soo gaaraya maleeshiyaadku khasaarihii ugu badnaa abid tani markii dagaalo ceenkan oo kale ah ay la galeen dowladda Soomaaliya. Gobolka Hiiraan waa halka ugu badan ee dhibaatada ay ka soo gaartay maleeshiyaadka Al-Shabaab maadaama dagaalada ay ku galeen oo dhan looga guuleystay ururka isla markaana ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegeen deegaano muhiim u ahaa isu socodka iyo waliba ka qaadista canshuuraha dadka ku sugan deegaanadaasi. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa hadda waxay wajahayaan xaalad aad u adag ka gadaal markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay go'aansadeen in meel kasta ay ku sugan yihiin ururka dagaal lagu qaadi doono. Dadka deegaanka ayaa qayb weyn ka ah dagaaladani ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab maadaama dadka aan dagaalka ku jirin iyagoo ay soo sheegayaan goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab halka dadka kale ee deegaankana ay qoryaha qaateen isla markaana iska caabinayaan ururka. Dagaaladii maalmahan ka socda gobolka Hiiraan waxaa laga soo warinayaa in dhalinyaro yaryar ah oo aan gaarin xilligii ay askarnimada qoran lahaayeen dagaalka ay ku jiraan. Laba ayaa la isugu xiray oo silsilad ay ku xiran yihiin, waxaana la diidanaa inay isaga baxaan goobaha dagaalka haddii ay ku adkaato oo rasaastu markaasi ay ku soo dhawaato. Mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay in arrintaas ay kaga gol lahaayeen in aanay ku jabin dagaalada ka dhanka ah ee ka socda deegaanada gobolka Hiiraan. Arrintani ayaa waxay noqonaysaa mid ugu ku ah dadka Soomaaliyeed maadaama hore aan u dhicin in fal noocan oo kale ay sameeyaan ururka Al-Shabaab. Nafti halignimo ayaa lagu ogaa oo inay miina ku soo xiraan dhalinyarada isla markaana dhihi jiray waxaad ku qarxisaan goobaha ay ku sugan yihiin cadowga islaamku ay u yaqaanaan dowladda Soomaaliya dadka u shaqeeyay waliba sidoo kale askarteeda. Ururka Al-Shabaab ayaa hadda xaaladda ku xun tahay waxaana laga yaabaa
in waqti uu qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laga saari doono guud ahaan dalka waana 2 sano oo kaliya waxaana hadda kor ay u sii dhaafaysaa bilooyin iyagoo wax ay ka harsan tahay xilliga loogu talagalay in maleeshiyaadka al-shabaab lagu soo afjaro. xubno sarsar oo kamid ah ururka ayaa gudaha u soo galaya caasimadda dalka waxaana la soo baxsanayaan qoysaskooda gadaal marka ay garteen in markasta lagu soo weerari karo deegaanada ay ku sugan yihiin si ay uga ilaaliyaan dhibta dadkooda ay u yimaadeen caasimadda Muqdisho halkaas oo ay keensadeen qoysaskooda. hase yeeshee ciidamada dowladda Soomaaliya oo arrinkaasi ka war helay ayaa uga digay in dadka reer Muqdisho ay soo dhaweeyaan cid kasta oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab xataa haddii ay soo dhiibaan. xildhibaano ku sugan furimaha hore ee dagaalka ayaa waxa ay sheegeen arrin la yaab leh oo ay ku arkeen halkaasi. xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay warbaahintu wuxuu u sheegay in kooxda al-shabaab ay dagaalka gobolka Hiiraan ay u adeegsato dhalinyaro ay soo qafaasheen. xildhibaanka oo kamid ahaa xildhibaanada lagu soo doortay magaalada Beledweyne kana qayb ah siyaasiyiinta al-shabaab kula dagaalamaya gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhalinyaradaasi argagixisadu ay gado lagu uga xirtay si aanay uga cararin furimaha hore ee dagaalka. Maalik Cabdalla oo la hadlay warbaahinta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu tilmaamay inay ahaayeen cadeymo muujinaya arrintaasi isla markaana ay ciidamada gacanta ku hayaan dhalinyaro qaabkaasi u xirxiran oo isu soo dhiibay. dagaalyahanada ka tirsan qolada qawaariita ama ha noqoto inay xoog ku dagaalgeliyaan oo ay soo qafaashaan ama ha noqoto farsamo ay keeneen hogaamiyaashooda si aanay u cararin midaas ay iigu yaabadneed ayuu yiri. marka dagaalka uu bilaabanaya ama la weerarayo inay ku sii diyaar garoobaan oo ay ugu talagaleen in aan meesha laga saarin ayay tahay sababta geedaha loogu xiro. waxaa laga yaabaa in qofka markani la soo qabanayo uusan raali ka ahayn inuu dagaalamo laakiin marka xabaddu ku socoto oo ugu qasban yahay inuu iska celiyo wixii soo weerara. xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in arrintaani uu indhihiisa ku arkay isla markaana aanay ahayn barobagando ay dowladdu ay ka abuureyso kooxda islaamiyiinta ee gudaha magaalada Muqdisho iyo gobolada qaar ee dalka ka dagaalamaya. maanta ayaa u dambeysay waxaa jirta 2 dhalinyaro ah oo isa soo dhiibtay. waxaa jira dad aan soo qabanay isbuucyo ka hor oo aan sheegnay inay dadka qafaalaan oo waxaa haynaa xog aan ka hayno in 100 iyo ka badan dhalinyaro ahi la soo qafaashay waqooyiga gobolka Hiiraan isla markaana dagaalada maleeshiyaadka al-shabaab ay ku jiraan markaasi la soo geliyay. ururka al-shabaab ayaa taatikan waxa laga yaabaa inay kaga gol leeyihiin in aanay ku fashilmin dagaalada ay kula jiraan ciidamada dowladda Soomaaliya. caruur aad u yaryar oo aan gaarin xilligii loogu talagalay inay qoryaha qaataan ayaa qayb ka ah dagaalada ka socda gobolka Hiiraan kuwaas oo maleeshiyaadka al-shabaab si qasab ah ay dhalinyaradaasi ugu soo dagaalgeliyeen dagaalada ka socda gobolka Hiiraan. ururka al-shabaab ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaaladani ka dhanka ah waxa ay wadeen dadaalo ay ku doonayeen inay iska caabiyaan jabka xoogga leh kaga imaanaya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsanaya dadka deegaanka ah. gobolka Hiiraan wuxuu ka bilowday dagaalkani muddo ka hor iyada oo guulo waaweyn ay ka soo gaareen ciidamada dowladda Soomaaliya. maleeshiyaadka al-shabaab intii dagaal ay ku galeen gobolka Hiiraan waa laga guuleysanayay iyadoo deegaano qaar isaga baxayay wax dagaal ayagoo aan gelin. ururka al-shabaab ayaa hadda u muuqda xaaladooda mid awood ay ka sii dhamaanayso mana jirto tabar ay isaga caabiyaan dagaalada kaga imaanaya ciidamada huwanta ah oo kaashanaya dadka deegaanka ah. xulafada reer galbeedka ee dowladda Soomaaliya ayaa qayb lixaad leh ka qaadanaysa dagaaladan ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo lagu baacsanayo. ururka ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ay isaga baxayeen deegaano qaar oo ka tirsan gobolka iyagoo aan tabar u hayn dagaalada kaga imaanaya dhanka ciidamada dowladda Soomaaliya. dadka deegaanka ayaa iyaga laftigooda waxa ay dagaalkan ay ku leeyihiin door muhiim ah maadaama qaarkood ay qoryaha qaateen halka kuwa kalena ay soo sheegaan meelaha ay gabaadka ka dhiganayaan ururka al-shabaab. gudaha caasimadda ee Muqdisho ayay qaarkood maleeshiyaadka al-shabaab waxa ay keeneen eheladooda iyagoo kala soo cararay deegaanada gobolka Hiiraan oo dagaal ba'an halkaas uu ka socdo. warar hordhac ah oo laga helay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in xubin sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo dhaawac laga saaray isbitaalka Digfeer iyadoo la geeyay isbitaal hay'addu ay maamusho waxaana la baarayaa qofka rasmiga uu yahay maadaama
xubnaha sarsare ee maleeshiyaadka al-shabaab kaliya lahay magacyadooda oo aan la garanayn muuqooda. Ururka al-shabaab ayaa hadda waxa uu yahay kuwa xaaladda ay ku xun tahay maadaama aanay hayn awood ay uga hor yimaadaan ciidamada huunta ee dowladda Soomaaliya kuwaas oo kaashanaya dadka deegaanka ah. Sidoo kale ciidamadu waxay gaashaan ka dhiganayaan deegaano fara badan oo ururka laga saaray, waxayna halkaas ka qaadaan dagaallo ay ku doonayaan inay kaga saagaan deegaanada kale ee ku teedsan halka ay maleeshiyaadku al-shabaab ay haystaan. Deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud ayaa laga saaray ururka al-shabaab, waxaana hadda maamula oo gacanta ku haya ciidamada dowladda Soomaaliya. Shalay ayay ahayd markii dagaal lagu qaaday deegaanka Wabxo oo ka tirsan gobolka Galgaduud, halkaasi oo laga saaray dagaal muddo socday kadib maleeshiyaadka al-shabaab. Maanta ayay ciidamada dowladda Soomaaliya si caadi ah u saldhigteen deegaanka, waxaana ay wadeen howlo miina baaris ah kuwaasi oo markaasi lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanka lagala wareegay ururka al-shabaab ee dhibaatada ku haya dadka deegaanka ah.